toddobaadkii u dambeeyay magaalada Muqdisho waxa ka dhacay dhacdooyin dad badan oo magaalada ku nool cabsi badan ku abuuray. halkan hadda aan taaganahay qoyska ku nool waxa la soo diristay dhacdo murugo leh. wiil yar oo ay dhaleen oo lagu magacaabay Sufyaan Cusmaan ayaa la waayay maalin saacadu markay ahayd 5 saac oo duhurnimo, waxaana saqdi dhexe xalay laga helay halkani isaga oo meeda. dadka qaar waxay sheegeen in xubnaha jirkiisa ay ka maqnaayeen xubno muhiim ah, inkastoo aynaan annaga weli meedka arkin. sida hadda arki karto halkan waa guriga ay ku noolaayeen oo aan hadda isku dayayno inaan galno. halkan ayuu deganaa wiilka iyo qoyskiisa oo ay ku noolaayeen. sida aan la soconana runtii waxaa jirtay ehelada marxuumka wiilka yar ee saqiiray inay walwal iyo walbahaar badan ku beertay. ilaa iyo hadda waxa la isweydiinaya waxay tahay dhacdadan ugubka ah iyo waxa keenay calaamadaha noola sheegay ay jirkiisa ay wiilka ka muuqdeen. waxaa ka mid ahaa in xubnaha qaybaha kilida iyo ay ku aadan yihiin ay calaamado ka muuqdeen, taasoo dadka qaar shaki badan ku abuurtay. dhacdadan waxaa loo qabtay 2 qofood sida la sheegay oo lala xiriirinayo in ay wax ka ogyihiin kiiska, maadaama meedka wiilkaasi yar laga dhaxay baabuur uu qaybta dambe ka saarnaa. eheladii hadda halkan wada jooga oo murugaysan oo walwalsan oo arintan ay naxdin badan ku abuurtay. guud ahaan dadka ku nool degmadan ayaa ayaguna aad uga naxsan. Munasir Maxamed Cabdi, Dalsan TV, Muqdisho.